xildhibaan Saciid Cartan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo gooraan ku soo dhaw xildhibaan Bulsha TV xildhibaan waxa jirta kulan uu la qaatay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe ee madaxweynaha Soomaaliya balkaroonka ka xildhibaan ahaan saad u aragtaa sidoo kale waxa jirtay ergeys xilqaantay oo garow u tagay heshiisiinta Soomaaliland iyo Puntland labada arrimood saad aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim oo maasantiin Bulsha TV marka hore jimco wanaagsan waxa weeye kulanka ama shirka uu ka qayb galay Faysal Cali Waraabe oo ka qayb galay dalka Belgium magaalada Brussels waxa weeye de sharciyan way baalmarsan tahay runtii waxa weeye horta marka hore qodob baa jiray xukuumadii Axmed Siiraanyo de oo Soomaaliland u degsanaa oo ahaa inaan laga qayb gelin shirarka Soomaaliya markii intii muddadii Axmed Siiraanyo uu madaxweynaha ka ahaa dalka ayaa waxa golaha wakiilada ama golayaasha uu ka soo codsaday in qodobka mamnuucaya in laga qayb galo shirarka Soomaaliya in meesha laga qaado asagoo markaa u arkayay in qodobkaas hadii meesha laga qaado faa'iido laga gaaray wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland in uu arqalad ku yahay ama dedan u arkayay hase yeeshee qodobkaasi markii meesha laga saaray waxay noqotay tusbax furan waana fursad baana laga helay nin waliba shirku doonaa ka qayb galay de markaa waxaan u arkaa qodobkaasina wuxuu u fasaxayay xukuumadda qura ayuu u fasaxayay inay ka qayb geli karto ama ay wada hadal la geli karto dawladda Soomaaliya ayuu qodobkaasina fasaxayay laakiin asxaabta qaranka meel ugu fasaxayay iyo cid kale toona ma jirin marka runtii waa ayaan daro waxaanaynu eegaynaa in xukuumaddu ay jawaab ka bixiso ileen farmaajo hadduu Faysal Cali la soo shiro dad kalena waa madax kalena waanu arki doonaa in markaa shir qodobkan sidiisa waxa lagu soo celiyo oo aanay access ama awood uma laha iyo cid ku matalo iyo cid ku dirtay midna ma ogin anagu laakiin xukuumaddan uga fadhnaa inay mowqif cad ka soo saarto safarka Faysal Cali Waraabe iyo qayru deynaan waxaan aanay dalka fowday la noqonaysaa aanay ka sii soconin mudane xildhibaan sidoo kale jirtay ergeys xilqaantay oo magaalada garow tagay oo sheegay inay ka shaqeynayaan heshiisiinta Soomaaliland iyo Puntland ciidamada la kala qaado ganacsato iyo salaadiin bas ugu jirtay muddo ka hor waxa xukun maxkamadeed ku dhacay boqor Cismaan Maxamed Buurmadow oo laftigiisu xilqaamay oo Puntland kaga tiraabay kelmado nabadeed balse aad aragtaa wafdiga iyagu tagay garow waxaan u arkaa horta Soomaaliya dhaqanka kuma kala tagin siyaasadda kala tagtay nimankan salaadiinta garow tagay garow marka dambe leeyla muqdisho ka soo diyaar ka soo raacay leeyay waxa weeye dhaqan ahaan way tagi karaan oo Soomaaliya xagga dhaqanka may kala xidhmeen dadku isu socdaa waana tagi karaan waana ka iman karaan madax dhaqamoodkooda u yimaada halkan inagu waynu tagnaa laakiin madax dhaqamoodka siyaasad loo egmaday ma jirto haba yaraatay siyaasadda waxa weeye xukuumadda iyo golayaasha qaranka ayaa mas'uul ka ah marka waa qalad xaqna uma laha wax dhaqan dhaafsiisan inay kala hadlaan cid ama siyaasad ama tukaraqaha waa hawl taala qaranka u taala laakiin inay madax dhaqameedku taag farageliyaan ama ma qabo in cid u wakiilatay ay jirto waa qalad arrinkaasi xaqna uma leh dhaqan bay ayagu xaq u leeyihiin way tagi karaan laakiin siyaasad iyo tukaraq ka kicideeda waa hawl qaran waa tala qaran waxa lagu tagay qarankana madaxweynaha hogaamiya meeshana waxa tala lagu tagay tukaraq la iskama tagin awaamir ciidan iyo dilaa madaxweynaha wax la isla ogiyay bay ahayd waana xuduudeennii waxa weeye maantana dubu guura nin suldaana iyo nin madax dhaqameeda midna negotiation kama gal kara hawshan waxa u taalaa waa hawl xukuumadda iyo qaranka u taalo weey xalin kara xildhibaan muranka taagan waxa weeye saam qaybsigan horta waxa weeye markii la qaybinayay Boorama saamigan la qaybinayay xilliga xal baa la mooday xal
ayaa la mooday waxaana lagu qaybiyey kuraasida 1960 ayaa lagu qaybiyey dee maanta waxaynu maraynaa 2018 ayaynu maraynaa ummaddu dee xilligii xalka imika waa la dhaafay waxa la rabaa cid waliba way xisaabtamaysaa wixii xaq ay u lahaayeen inay helaan ayay dee gobollada saluugsan saamigooda xaq ay dareensan yihiin waxaanan qabaa in Somaliland dee wada hadal iyo isu tanaasul bay heerkan ku soo gaadhay waxaan qabaa in cabatinkoodaasi xaq yahay dee boorama tahay hadday tahay laascaanood cabashoodu waa xaq tallaabadii loo marayo dee waxa weeye loo marayo haddii distoorka la furay waxaanan ku talinayaa in distoorka la furo oo tirada golaha la kordhiyadii ya waayo ayagun maahee annaga gobolka saaxil 10 xildhibaan baanu leenay waanu saluugsanaysaa ama qaybsigiina lagu siiyey waayo markii la qaybinayay arka 12 xildhibaan baanu ayaanu qoonto u helnay allah naxariistay maxamed xaaji ibraahim baa 2 xildhibaan ka jaray gobolka saaxil oo markaa xal ku raadinayay marka anagu haddaanu reer saaxil nahay qudhayadu kuma qanacsanin 10 xildhibaan waa Luqmaan Maxamed Faarax Bulsha TV Hargeysa